taliyihii hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Xasan Cabdilaahi oo ku magac dheer Jirif oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka Sahan ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay doorashooyinkii isbarkanaa ee dalka ka dhacay waxaanu doorashadaasi ku amaanay madaxweynaha Somaliland qaabkii uu u hagay waxaan ku ambaleynayaa كوفيد كسوري سنة كوفيد الإعلانات كيجون 1960 أنت أمريكان كإلهادو واحد لو سؤال واحد كان لي دورشدي سسارنيد أيلو قلي دورشاس عجيب هيد سومال لادو واحد قرر سنة ما هيد إذا كنت يتنا ميجري مركا خطر بينو قلي وينوس أبابولي runtii madaxweynaha Somaliland runtii uu khamaray lacag marka loo eego dhaqaalaheena lacag 18 milyan oo dollar ayuu doonay waa lacag dhaqaalaheena marka la eego badan waxa lagu dhacay baarlamaanka sharcigiisu dhacay walaashii deegaanka sharcigoodu way dhaceen marka waxa noqotay in doorasho la galo doorashaha la galay mamlid baa loo galaa mise laba loo galaa inuu ku xamoodeen in mid loo galayo وإنه عصبتهاي دورشة إساسارة لبدي أبينه عصبتهاي عيد كلاق الشيء ودورشة نوعاسة الشيء وإنه كذا يعني أنا مشري ساد رادين وحرام بليليا من حوالي جمهورية سوماليلاند وأكو قاطي وخماري أرنتيس وإذا أمانة يا شعب كريس سوماليلاند دورشة كوكاي نبتقليو يوناك taliye hore Jirif oo aan su'aalay barhirtanka hadda gudoobinimada golaha wakiilada loogu jiro iyo isagu ciidta uu u sacabatumayo waxa uu ku jawaabay horta doorashada shirgudoogu waa muhiim baarlamaanka muhiim yahay dawladda muhiim yahay ila doorto weey maadaama ay laba xisbi isku beeraan oo ay sameeyeen maxay samaysteen oo iyagu doorteen Cabdirasaaq أنا أقول عصاي عبد الرزاق لوديبو جيب برزقة برلمان. dhinaca kale Jirif waxa uu soo hadal qaaday ammaanka doorashadii isbarkanayd ee dalka ka dhacday waxaanu si weyn u amaanay taliyaha ciidamada qaranka Somaliland Nuux Ismaaciil Taani waxaanu madaxweynaha Somaliland u diray fariintan waxa madaxweynaha u soo jeedinaya jalanka ciidamada qaranka kasreegaas Nuux Ismaaciil Taani in bilad la siiyo sababtoo ah waa isagoo gudanaya waajibaadkooda ka hayay ee ahayd inuu sugo soohidda Somaliland iyo demarcation line-keedu sugo haddana goob kasta oo saduuq yaalo ciidamada u geeyay saadaraadeen madaxweynaha xarun lahaa bilad la siiyo taliye hore Maxamed Xasan oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gabiley waxa uu ka hadlay xaaladda hadda gobolkaasi ku sugan yahay waxaanu yiri Gabiley uma baahna wadooyin uma baahna la taago Gabiley waxa u baahan tahay beeraley weey in beeraha loo qodo cagfiya la keeno waxa laga qabto beeraha dadkiina way ka yimaadeen beeraha ay ku noqdaan oo wax soo saarkii ay sameeyaan waxay u baahan yihiin gobolnimadeedii in loo cadeeyo waxay u baahan yihiin airport kala bayn in la dhiso oo Ethiopia jaaranahay isagana lagu shaqeeyo ayuu baahay wuxuu baahay wajaale fruuzokood ayuu baahay inta marka la qabto waxa islaahay xisbiga wadadii uu guuleysanaya ugu dambeyntii Maxamed Xasan Cabdilaahi Jirif waxa uu soo hadal qaaday doorashada madaxtooyada ee soo socota waxaanu sheegay in doorashadaasi uu u arkay in uu guuleysanayo xisbiga mucaaradka ee wadani waana kan isagoo arintaasi ku sababaynaya sidan waxaan ku darayaa doorashadan waxa ku xigta doorasho dambe oo tii madaxtooyada anigu waxaan qabaa doorashada madaxtooyada inuu ku guuleysanayso xisbiga wadani sababtuna waxa weeye haddii ka gudbaan dhowr arrimood haddii ka gudbaan oo ay ka mid tahay gobolka togdheer iyo dadkiisa inay mideeyaan walaaleeyaan arrinkaana waxaan u waxaad kala tashataan Suldaan Ismaan buurmadow oo ruusheega oo idin kala talinaya
وحيال قبطان وحيلي كل جور وقنشو جور مركا قنشيا لو جورني وافتح الغدرة بقركا وحلقة سوق عطوه على راسه أرسله نك لبعض السوق هذا هو محمود حاشي سكوليرا أيوب مير خبر على الغد تيوخر الوضع هيستو قولي وكذا إلى ما ترى سياسة دي وكتيرة بحولها سواء لنا وسبيها عبدنا إسرع دورت مانتا وأيد كنت ذلك مركان نكاسر وكل مية هاي سكان هذا محمود حاشي جديد مايو إن قولك تقدر لو لا ليو وحلقة قبطه كجديد مايو حزبك وطني بدري قصار محمود تلفيشة كسهل